runta in la isu sheegaa fiican loolankan loolan naga weyn buu ahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalka Diiwaan. Kusoo dhawaada barnaamij la magac baxay Ha dhaafin adoo dhuuxin oon kusoo gudbi doono shakhsiyaad kala duwan oo bulshada magac ku leh. Soomaaliya waxaa soo maray rag fikirka ay qabaan ku adag. kuwaasna waxaa ka mid ah oo weliba ugu cadcad Senator Muuse Suudi Yalaxow. waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1952. sanadkii 1990 markii uu Soomaaliya ka dhacay dagaalka sokeeye, Muuse waxa uu madax ka ahaa degmada Madiina isagoo matalaya dhaqdhaqaaqii ururkii la magac baxay USC, isaga oo ka mid ahaa hogaamiye kooxeedkii ugu awoodda badnaay Muqdisho ee caasimadda soo degtay dowladdii ku-meel gaarka ahayd oo uu madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan. waxaana dhacday inuu dowladdaasi aad uga hor yimid. hadalladii laga diiwaan geliyana waxaa ka mid ahaa: minay bac tahana waa bajinaynaa, minay bir tahana waa ka leexanaynaa. Muuse Suudi waxa uu hormuud ka ahaa mid ka mid ah kooxeedyadii ugu awoodda badnaa Soomaaliya ka hor inta aynan meesha ka saarin midowgii maxaakiimta sanadkii 2006.